sagootintii iyo dardaarankii uu Macalin Maxamed faarax kibaar siiyey ardayda dugsiga sare ee IRSHAD Secondary School gaar ahaan ardayda fasalada afraad ee sanadkan baxaya. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin. Amma ba'du. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kadib magacaygu Maxamed faarax kibaar waxaan macalin ka dhigaa biology-ga IRSHAD Secondary School gaar ahaan waxaan dhigaa fasalada form 3 iyo form 4ka. halkan maanta waxaan ku sagootiyayaa fasalada form 4ka gaar ahaan fasalka form 4C oo muddo badan oo 2 sano aan soo wada joogno biology-ga soo dhigayay. fasaladaas form 4ka oo ka kooban A iyo B iyo C iyo D haddaan isku wada daro waxaan leeyahay waa fasalo firfircoon aqoonta iyo akhlaaqaduna ay ka muuqato noona tartami karaa imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada Soomaaliland oo dhan laga qaadayo. waxaanan ku kalsoonahay aqoontooda iyo dadnimadooda iyo kartidooda iyo inay tartami karaan. waana arday muddo badan juhdi badan la soo geliyay dadaal badan la soo geliyay supplementary badan iyo waxyaabo kabid badan loo soo sameeyay. waana arday time badan la soo geliyay waalid iyo macallimiin iyo maamulka la soo taagnaa. waxaan leeyahay arday maanta hadday iskuulka dhamaysteen form 4 dhamaysteen 12 sano soo dhiganayseen inaad ka midha keentiin waxbarashadiinni. not only maanta iskuulka dadka qalin jabin maayo waxbarashada intii hadhayna intii badneedna way nii soo socotaa intan dadaal sayda ayaa laynaga baahan yahay. waxaan leeyahay waxbarashada intani waa inteeda furaan noqonaysay fari kama qodno waa inaad sii wadtiin dadaalkii horena sii laablaabtiin waxbarashada halka kale qodobka kale ee soo sheegayna waxa weeye halkan maanta ardaydan la sagootiyo u soo jeedinaya waalid iyo macallimiin iyo dad baa nagu soo tabcay saad macallimiintiina iyo waalidkiina iyo lafihiina iyo bulshadiina uga farxisiina had iyo jeer wanaag hor socod haatiin. wuxuu yidhi ninkii loo oran jiray Martin Luther King markuu dadka madow xoreynayay wuxuu yidhi marka hore buu yidhi waa inaad oroddaa hadafkaaga iyo goolkaaga waa inaad orod ku raadisaa buu yidhi. haddaad orodku gaari weydana waa inaad guclo ku raadisaa buu yidhi. guclaha haddaad ku gaari weydana waa inaad aayar u socotaa buu yidhi. aayar haddaad socon weydana waa inaad oroddaa buu yidhi. waa inaad gurguurataa gurguurad haddaad ku gaari weydana waa inaad bogga ku socotaa buu yidhi. aduu wuxuu yidhi isu soo wada duuduubo anyway hadafkaaga kii hore u socda ahaada. anu maanta halkan waxay nagu soo gabagabaynayaa maadaama 2 sano oo dhan macallin aan soo ahaa hadafkiina iyo ujeedada aad leedihiin ama socod ku gaadha ama guclo ku gaadha ama orod ku gaadho waa inaad hadafkiina gaadhiin. assalaamu calaykum warahmatullahi